bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacaana wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna xogta dunida oo aynu daaha kaga rogi doonno turkiga oo faa'iidooyin la yaab leh ka helay dagaalka culus ee ka soconaya waddanka yukrain ruushka oo xaqiijiyey in ay dileen in ka badan 100 ka mid a ciidamada gaarka ee yukrain caasimada kiif oo ay kusii siqayaan ingiriiska oo shiinaha ka dalbaday inay iska daayaan dhexdhexaadnimada kuna soo biiraan dhankooda iyo maraykanka oo isku dayaya in uu turkiga ku riixo dhanka dagaalka mar kale daawadayaal soo dhowaada daawada fadlan haddii aad nagu cusub tahay janalka subscribe inoo saar sidoo kale furagan baleelka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid dhanka facebook haddii aad naga daawanaysa fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan inoo sii sheergarayso sidoo kalena nasoo falow garay mahadsanid warbixin xiiso badan oo ku saabsan faa'iidooyinka turkiga uu ka helay dagaalka culus ee ka soconaya waddanka Ukraine ayaa inoo soo socday hase ahaatee aynu ku bilowno wararkii ugu waaweynaa ee maanta oo taariikhdu ay tahay 20 bisha Maarso ee ka jira waddanka Ukraine iyo warbaahinada caalamka waxa ay ka qorayaan xaaladaha hadda taagan sawiro laga soo qaaday dayax gacmeedka waxa ay muujinayaan in ruushka dhufeysyo waaweyn ay ka qoteen agagaarka caasimadda Ukraine ee Kiev iyaga oo halkaasi difaacyadaasi ugu talagalay in ay duulana kaga qaadaan dhanka ciidamada Ukraine ee difaacaya magaalada caasimadda ah sidoo kalena dhufeysyadan waxay u adeegsanayaan inay gaadiidkooda dagaalka ku qariyaan halka ila wareeyda kalena ay daaha ka qaadayaan in Mareykanka uu isku dayayo in uu Turkiga geliyo colaadda ka socota waddanka Ukraine isagoo dhowr wada maraya ciidamada Ukraine waxay sheegayaan in ciidanka Ruushka ee gacanta ku haya dekedda Mariupol ee koonfurta waddanka Ukraine ay ka hortagayaan si ku meel gaar ah in ay u gaaraan badda Azov laakiinse waxay xaqiijin ciidamada Ruushku ay ilaa iyo hadda ku guuldareysteen inay go'doomiyaan caasimadda Kiev waxayna xaqiijiyeen ciidamada Ukraine in dagaaladii dhacay lagu dilay generaal sare oo Ruushka waa sida ay hadalka u dhigeen dhanka siyaasadana ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ku booriyay Shiinaha in ay ka tanaasulaan dhexdhexaadnimadooda ayna ku biiraan beesha caalamka si ay u cambaareeyaan dagaalka Ruushka ee Ukraine Johnson waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in qaar ka mid ah maamulka madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ay aragti labaad ka qabaan mowqifka dhexdhexaadnimada ah ee Shiinuhu ka qaatay tallaabooyinka Ruushka ee ka dhanka ah dariskooda reer galbeedka dhanka bini'aadamnimadana qaramada midoobay waxay sheegaysaa in 6.5 milyan oo qof ay barakaceen kana barakaceen dagaalada kuna barakaceen gudaha waddanka Ukraine marka lagu daro 3.2 milyan oo dalkaas oo dhan isaga carartay sidoo kalena wasaaradda difaaca ee Ruushka waxa qoraal ay soo saartay ay ku tiri in ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ee Ukraine ayaan ku dilnay duqeyn culus oo sax ah oo ka dhacday xarun tababar oo ku taala halka lagu magacaabo Zhytomyr ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine waxa uu leeyahay waxa soconaya heshiis lagu furayo 7 wado oo mid ka mid ah wadooyinkaasi ay ku taala magaalada Mariupol si looga daadgureeyo dadka rayidka ah ee halkaasi muddada ku jiray gargaarna loo gaarsiiyo wasaaradda difaaca Ruushkana waxay kaloo leedahay ciidamadeenu waxay mar kale isticmaaleen gantaalada Kinjal hypersonic duqeymo ay ku garaaceen xarun military oo Ukraine leedahay markan Ruushku waxa uu u muuqdaa in ay isu diyaarinayaan gabagabada howlgalka kadib markii gantaaladan guuxooda aadka uga dheereeya ay bilaabeen inay isticmaalaan ee loo yaqaan hypersonic kuwaas oo aan qaban karin raadarada isla markaana burburin kara saldhigyada dhulka hoostooda ku yaala sidoo kale wasaaraddu waxa ay leedahay ciidamadeenu waxa ay duqeeyeen dhismo warshadaha militariga Ukraine oo ay ku rakaban yihiin gantaalada Kleber ee garbaha leh ee laga soo tuuro badda madow dagaaladu waxa ay yihiin kuwa aad u xoogeystay isla markaana Ruushka qadidii dagaalka hore ayuu aad u bedelayaa waxaana uu doonayaa in jihooyin kale dagaalka uu ka sii socdo isaga oo markana la soo baxaya awoodihiisii waaweynaa mar haddii Ukraine ay ku tusaale qaadan weysay weerarkii koobaad ee lagu soo qaaday weeraradan culusna waxa ay ka dhigan yihiin in dagaalka wajigiisii labaad uu bilowday markana aynu eegna bal faa'iidooyinka la sheegayo in Turkiga uu ka helay xasarada waddanka Ukraine ka taagan tan iyo markii uu bilowday dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine 24 bishii Febraayo xaalado badan ayaa ku soo kordhay dunida waxaana ka mid ah isbedel ku dhacay xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Ukraine xukuumadda Ankara iyo Washington ayaa sanadihii u dambeeyay u dhaxaysay xurguf ku saabsan dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay xakameynta awoodda hubka Turkiga go'aanka uu Turkiga uga soo horjeestay isku dayga uu Ruushka ku doonayo qabsashada Ukraine iyo sidoo kale dadaalka ugu jiro in labada dhinac lagu dhexdhexaadiyo hab diblomaasiyadeed ayaa sabab u noqotay in uu aqalka cad u mahadceliyo Ankara khubarada dhinaca diblomaasiyadda ayaa sheegay in aysan wax lala yaabo noqonin haddii ay madaxweyne Erdogan iyo dhigiisa Mareykanka madaxweyne Joe Biden kulan yeeshaan inta uu socdo shirka NATO ee loo balansan yahay isbuuca soo socda mowduucyada ay ka wada hadli doonaan waxaa ka mid ah sidii loo kordhin lahaa
wadaxaajood labada dal u dhexeeya iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan diyaaradaha uu Turkiga doonaya ee noocoodu yahay F-16 iyo xiisadda ku gadaaman gantaalada difaaca S-400. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine, Turkiga ayaa u muuqday in uu dhowr arrimood ka faa'iiday arrintaasi. Arrinta koowaad waa xiriirka Turkiga iyo Mareykanka oo soo hagaagaya. Markii uu Ruushka gudaha u galay Ukraine, waxa uu weerarkiisa ujeedadiisu ahaa in aan la ballaarin isbahaysiga NATO oo uu Putin ka baqayay inay xuduudihiisa ku sii fidaan. Tallaabadaasi ayaa horseeday in isbahaysiga reer galbeedka uu dhankiisa adkaysto difaaca, waxaana muhiim noqotay in sare loo qaado xiriirka Mareykanka uu la wadaago wadamada xubnaha muhiimka ka ah NATO oo uu ka mid yahay Turkiga. Turkiga ayaa isagana dhankiisa muujiyay sida uu u diidan yahay dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine, inkastoo uu xiriir xoogan oo dhanka dhaqaalaha ah la leeyahay xukuumadda Moscow. Dhanka kalena, ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ay militariga Ruushka isaga caabiyeen diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ee ay ka heleen Turkiga, laakiin diyaaradahaasi waa ay iibsadeen ee ma aha wax uu Turkiga dagaalka uga qayb qaadanayo. Dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Erdogan ma aysan beeninin taageerada ay siisay Ukraine, inkastoo ay sheegtay in diyaaradahaasi laga iibsaday shirkad laga leeyahay Turkiga. Arrimaha kale ee sida weyn loogu bogaadiyey Ankara waxaa ka mid ah sida ay ugu istaageen dadaalada xalka diblomaasiyadeed lagu raadinayo dagaalka ka socda Ukraine. Intaasi waxaa sii dheer in Turkiga uu xiray marinada badda ee Istanbul iyo sidoo kale Dandaris oo laga hor istaagay maraakiibta militariga Ruushka. Tallaabadaasi oo waafaqsan heshiiskii caalamiga ahaa ee Montreux. Isbuucyadii la soo dhaafay waxaa si xoog leh u kordhay heerka xiriirada wada hadalka iyo sidoo kale joogteyntiisa ee u dhexeeya Washington iyo Ankara. 9 bishii Maarso waxaa qadka telefoonka ku wada hadlay madaxweyne Recep Erdogan iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Inta ay socotay xasarada, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa dhowr jeer la xiriiray dhiggiisa Mareykanka Antony Blinken. Sidoo kalena wasiirka difaaca ee xukuumadda Ankara ayaa isna la xiriiray wasiirka gaashaandhigga Mareykanka. Ilwareedyo laga helay khubaro ku xeel dheer arrimaha diblomaasiyadda ayaa sheegay inay aad ugu badan tahay in isbuuca soo socda ay si gaar ah isu arkaan Erdogan iyo Biden marka uu dhacayo shirka hogaamiyaasha wadamada xubnaha NATO. Qodobka labaad waa Turkiga cadaadis laguma saari doono hirgelinta cunaqabateynta Ruushka. Mowduucyada ugu waaweyn ee ku saabsan wadahadallada la xiriira Ukraine ee lala yeeshay Turkiga waxaa ka mid ah in Mareykanka uu cadaadis ku saarayo Ankara inay si buuxda uga qayb qaadato cunaqabateynta lagu soo rogay Ruushka iyo sidoo kale in kale. Waxaa xukuumadda Ankara hoosta looga xariiqay in aan culays lagu saari doonin arrintaasi haddii ay hawada Turkiga u furnaato Ruushkana aan cabasho laga keeni doonin. Hase ahaatee, waxaa il gaar ah lagu hayn doonaa in aysan Moscow marinka hawada ee Turkiga u adeegsanin kala gudbinta qalab militari iyo soo daabulista dagaalyahano ka imaanaya dhinaca Suuriya. Qodobka saddexaadna waa in uu Turkiga helo diyaaradaha dagaalka F-16. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Turkiga uu ka faa'iidayo in uu hagaago xiriirka kala dhexeeya Mareykanka waa in la dhammaystiro hirgelinta heshiiskii uu Washington uga iibsaday diyaaradaha dagaalka ee noocoodu yahay F-16. Labada dal ayaa isku khilaafsanaa qodobkan tan iyo dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay. Mareykanka ayaa diyaaradahaasi u diri waayay Turkiga oo lacagtooda baxsaday kadib markii ay xurguf ka dhalatay go'aanka uu Turkiga gantaalada difaaca hawada ee S-400 uga iibsaday Ruushka. 80 diyaaradood oo Turkiga uu filayay in ay soo diraan Mareykanka ayaa ilaa hadda la gaarsiinin. Hase ahaatee, waxaa hadda la filayaa in Turkiga uu helo diyaaradahaasi haddii uu is-afgaradka guul ku biyo shubto. Sida ay sheegeen ilwareedyo wadahadallada bilowday bilihii lasoo dhaafay ayay suuragal tahay in lagu soo gabagabeeyo ilaa xagaaga oo ah bartamaha sanadkan, kadibna loo gudbiyo golaha Koongareeska si ay u ansixiyaan. Maamulka madaxweyne Biden ayaa sheegay in Ankara uusan wax dhiba xaggeeda ka imaan doonin haddii laga iibiyo diyaaradaha F-16, balse waxaa adkaan doona in Koongareeska ay aqbalaan. Turkiga ayaa hadda ku doodaya in khatarta ka dhalatay dagaalka Ukraine aysan saameyn doonin oo keliya dalkooda, balse ay gaari karto dhammaan wadamada xubnaha ka ah NATO ee dhinaca koonfurta bari. Waxaa la soo tabiyey in arrintani ay hadda sababto in Koongareeska Mareykanka ay mudnaan gaar ah siiyaan sidii loo ansixin lahaa in Turkiga laga iibiyo diyaaradaha F-16. Mareykanka ayaase dhanka kale doonaya in Ankara aysan howlgelin qalabka difaaca S-400 ee ay ka soo iibsadeen Ruushka, kaasoo qaybtiisii ugu horeysay lasoo gaarsiiyey bartamihii 2019. Washington ayaa ku adkaysanaysa in xitaa haddii ay Turkigu haysanayaan gantaalada S-400 ay kayd ka dhigtaan marka lagama maarmaanka noqoto oo keliyana la howlgeliyo, inkastoo Turkigu ay arrintaasi ka biyo diidan yihiin. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan barnaamijkeena xogta dunida wanaag intaas barnaamijka mid ka xigeentan ku kulmi doono. Nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.